waxaan rabaa inaan u sheego dadka beledweyne iyo dadka hirshabeelle dadku cabashadooda inay muujiyaan xaq bay u leeyihiin dastuurkooda dhigaa xuquuqda ay muwaadin ahaan u leeyihiin ayay ka mid tahay laakiin magaalada in la fowdeeyo oo baabuur muxuu ahay rag lacag bixiyaan oo dhagxaan lagu dejiyo oo magaalada mataqaanaa la carqadaleeyo xuquuqdana kuma jirto mana yeelayno laakiin hadda waxaa noo muhiimsan inaan cadaaladda helno waana heli doonnaa insha allahu tacaala arrimaha aan tuhmayno oo siyaasadaysan oo aan ka dhex arkayno mar raba inaan hadda wax ka iraahdo labadaas guddi oo loo magacaabay ayaa ogaa doona ujeeddada laga leeyahay dilka taliyaha carqaladaha la abaabulaayo iyo markii horeba meesha laga soo abaabulay markaa taas ka hor dhici maayo waxaan rabaa inaan dadka reer hirshabeelle gaar ahaan reer beledweyne inaan iraahdo isdejiya cadaaladdaad heli doontiin marxuumku cadaaladuu heli doonaa dadkii cadaaladdaas shaqadeeda geli lahaane wixii federaalka ka socdana berrihii noo imaanayaan wixii hirshabeellaane waan magacawnay labadaas guddiyaa arrinta ka salgaari doona ayagaana insha allahu tacaala runta meesha ka jirta ogaa doona ummadda reer beledweyne gaar ahaan reer hiiraan in dhibaatada iyo qaska iyo dhibaatada ka jirta hiiraan waxa noo keenay ninka la yidhahdo maxamed cabdi waale haddana waxa soo dhaweeyay ninka la yidhahdo faarax kooshin dhibaatada asigaashaa noo keenay ninkii aan kalbaan ka celinay markii aan celinay asaa soo dhaweeyey ma yeeli doono waxaan u digayaa dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ma doonayno maxamed cabdi waale aan isdejinna federaal wax la yiraahdaa jiro hirshabeelle wax la yiraahdaa ma jiraan ummadda waxaa u sheegnay madaxweynaha maxamed cabdi waale inuu xilkii iska wareejiyo ama cadaalad darrada uu ka baxo ayika tashanaayo tala noo mahayo ayika tashanaayo waa u sheegayna